wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare wuxuu ku dhawaaqay joojinta imtixaanaadka dugsiga sare kadib markii imtixaanka la xaday. ciidanka qaranka oo gargaar caafimaad degdeg ah ka fidiyey gobolka Shabeellada Hoose. shil gaari oo ka dhacay Wajeer oo sababay dhimasho 10 qof. Kenya ayaa sheegtay sababaha loo joojiyay duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi. ciidamada ammaanka ayaa soo saaray miino dhulka lagu aasay waddo u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. 5 qof ayaa lagu dilay Suudaan, qaar kalena way ku dhaawacmeen. Uruwa oo ka dalbatay caalamka $60 milyan si ay uga caawiso dad ku dhibaataysan Gaza. Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska oo cambaareeyay dagaalka Suuriya. askarta Sri Lanka oo soo rogtay xaalad degdeg ah ilaa 4 habeenimo. Mohamed Salah oo ka dalbaday taageerayaashiisa inay ka caawiyaan horyaalka Yurub. Man City oo qaaday horyaalka Ingiriiska.